labadan been waa labada been ee ugu weyn ee lagu marin habaabiyo dadka Soomaaliyeed kaliya yaanan dhihin dadka Soomaaliyeed oo dadkoo dhan weyna la qaban laakiin haddana sidaas ay tahay dadkeena Soomaaliyeed aad ay ugu nugul yihiin labadan beenood yani labadan beenood aad ay loogu isticmaalaa. السلام عليكم سوري بدا صاحبيال waxaan ahay Ibrahim Adam muuqaalkeena maanta waxaan rabaa in aan kugu la wadaago labada been ee ugu waaweyn oo dadkeena Soomaaliyeed inta badan loo sheego oo ay horana ka aaminaan adigu laftirkaaga waxa laga yaabaa in hadda ka hor ay kugu dhacday ama aad aamintay mar rabo in muuqaalku ugu sii dheereeyo hadii aan si toos ah ugu galno muuqaalkeena beenta koowaad ama shayga koowaad ee dadkeena inta badan lagu sameeyo ee lagu dhacay waxa kamid ah qofku dhahay lacagtaada iidib aniga ayaa online ka lacag kaaga sameeynayo ama kugu shaqeynayo waliga aaminin qof noocaas ku lahaaday aniga ayaa hadeertan ku cadeynayo waa been weyn wax ka jirana ma lahan yani qofkan ku dhahayo aniga ayaa online lacag kaaga sameeynayo ee lacagtaada iidib asaga ma lacag ka sameeyo why he's not using his own money muxuuna lacagtiisu isticmaalin muxuu lacagtaada ka rabaa lacagtaada muxuu ka doonaya ask yourself that question first adiga naftaada isweydiiso su'aashaas marka hore qofkan muxuu lacagtaada ka rabaa mu lacagtiisa isticmaalo yani dad fara badan oo Soomaaliyeed oo lagu dhacay ayaa jira arintaasi yani waxa ugu horeeyay oo tusaale cad ah barnaamij hadda ka hor la yiri forex yani dad ayaa inta xafiisyo caadi furteen ay waxay dhaheen forex ayaa lacag ka sameeyna soo lacagtaada noo dhiibo anaga ayaa kugu shaqeynana kadibna bishi intaas qaado wajiraan dad lacag ka sameeyay oo yani lacagtooda usoo laabatay laakiin markasto dadka hore way faa'iideen laakiin dadka dambe ayaa la iskaam gareeyaa oo maaragtay oo lacagtooda la dhaca ujeedada ama danta laga leeyahay ayaa waxay tahay in dadka trust la geliyo in dadka aaminaad la geliyo yani markii aaminaan dadka ayaa inta dambe waxa lagu sameeyaa scammed inta dambe lacagti badneed ee gadaalkii maatay ayaa hal mar lala goostaa sidoo kale waxa jiray barnaamij dadban oo online ah oo asagana la dhigi jiray CJ dad badan ayaa ku faa'iiday yani faa'iido badan ka sameeyay laakiin markasto sidan hore u soo sheegnay dadka dambe ayaa ku go'o dadka dambe ayaa la iskaam gareeyaa oo lacagahooda la dhaca maalin dhow isla sanadkan gudihiisa waxaan u maleynayaa inay ahayd February January meelahaas barnaamij waxa jiray Tradebot ay dhahayeen dad badan ayaa san lagu dhacay aniga rabo inaan ka soo hadlo oo muuqaal ka soo sameeyo ayaan waxaan maqlay hal mar Tradebot hawada ayuu ka baxay soo marka waa inaad iska hubisaa meesha aad lacagtaada gelinayso yani way jiraan barnaamijyo badan oo lacag ka sameynayso sida forex kaas oo kale crypto oo kale adiga baro adiga lacagta ka samee yani adiga baro kadibna adiga lacagtaada gasho adiga ku shaqeyso adiga lacag ka samee qasaari iyo faa'iido wixii ku galo markaas adiga ay ku taala laakiin inaad qof lacagtaada u dhiibto kadibna igu shaqey aad dhahdo ama uu ku yiraahdo aniga kugu shaqeynayo waa scam wax ka jira ma lahan wali waxa jiro dad dhahayo maaragtay crypto ana lacag kaaga sameynayo ana ku investment gareenayo lacagtaada ii dhiibo waxaan maqraati ka ahay oo aan arkeenin dhahayo yani muuqaalkan waxaan ugu talagalay dadka maaragtay lacagta haysta hadii aad shit tahay oo aan lacag haysanin muuqaalkan adiga kugu ma socdo dadka waxaan la hadlayaa ganacsatada oo maaragtay oo lacagta haysto waxa soo dirsanaysaa $5,000 $10,000 $30,000 aniga ku investment gareenaya bil kasta faa'iidada ayaa helaysa anigana faa'iidada ayaa siinaysa yani yes waa fikrad fiican laakiin mostly it's scam wax ka jira malaha lacagtaada ayaa la rabaa in la dhaco so don't trust someone who asked you your money to do a profit ha aaminin qofku yiri lacagtaada idib aniga ayaa faa'iido kaaga sameynaya ama aniga ayaa kugu shaqeynaya do not trust yani online ka ayaan ka hadlaynaa laakiin waxa jiro dadka qaar oo investment u baahan yani waxa jiro investors dad liirada dadka maalgeliya yani qof mashruuc rasmi ah oo cad la socdo oo document aad kala saxiixanaysaan yani you can invest in that person yani qofkaas waa investment gareyn karta laakiin qofku yiri online ka lacag kaaga sameynaya that's scam waa been wax ka jira malaha sidoo kale waxaan rabaa in aan ku darsado barnaamijyo waxa jiro maaragtay mararka qaar linkiyo la isku dirdiro online for example dhahayo Qatar Airways gift ay bixinaysaa Saudi Arabia gift ay bixinaysaa bla dadka qaar waxa jiro WhatsApp ka ku wareerinaya linkiyo dirdirayaan that's fake wax ka jira malahan cid lacag free kugu siinayso malahan so waxaas waa ina ka waantooda waa ina yani aqliyadaada waa inay dhisan tahay yani linki inaad qof u dirtid oo maaragtay no this advertisement waa waxaan yani dadka haysiin waay waxaan mararka qaar xataa linkiyadan aad diraysid shirkadda lagu qaraabanayo Qatar Airways bla yani wax ka jira malahan waa been dad ayaa ku qaraabanayo waxay rabaan in website-kooda la soo booqdo si lacag uga sameeyaan I think something like that inay tahay ayaa u maleynaa marka it's a fake stop sharing these links so adig qof horumarsan oo maskaxdiisa shaqeynayso oo dunida casriga la socdo inaad noqoto
isku day. beenta labaad ayaa waxay tahay ha aaminin wax kasta oo social media ku jiro. wax kasta oo social media ku jiro ha aaminin. waa been. qof ayaa ku dhahayo aniga ayaa halkan wadadaana maray sidaan sameeyay kadib ayaa waxaaneeti helay. yani waa been. dadka qaar waxaa jira maaragtay si kadis ah ama si kama ah caan ku noqday, ama dadka qaar waxaa jira si kadis ah yani wax ku helay. ilaah baa siiyey, asaga wado u maray oo asaga ku sameeyay ma jirto. fiiri, waxyaalahaasna waa waxyaalaha maaragtay hadhowta qofka dhibaato u keenayo. wax ayaa ilaahay ku irsaaqaya ama ilaah ayaa siinayo, kadib wuxuu ku leeyahay wadadan ayaa maray, kadibna saas marka adigana waad sameyn kartaa samee. waa been, wax ka jira malahan. qofkan asaga ayay batiis haysata. wax kasta oo social media ku aragto, especially media, dadkan media yani dadkan warbaahinta oo kale, yani war ay sheegayaan oo asal iyo rad aan lahayn oo been ah, adigana waad aaminaysaa. so cidna ha aaminin social media, ha aaminin. wax kasta oo social media lagu soo gudbiyo waa fake, wax ka jira malaha, waa been weeyaan. so waxyaalaha qaar inta badan waxay iskaga badan yihiin yani xayisiin ama advertisement, something like that. so marka ha aaminin wax kasta oo aad social media ku aragto. muuqaalka daabo, qofka wuxuu sheegay dhageyso, daabo, yes, ka soco, laakiin don't trust. maskaxdaadu yuu saameynin, naftaadu yuu saameynin, and do not trust for that thing. so it's fake. waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iideen oo maanta ka bacdina aadan aamini doonin labadan beenood oo waaweyn iyo wax kasta oo aad online-ka ku aragto. qofku dhahayo lacagtaada idhib, aniga ayaa ku investment gareynaya, kadibna lacag kaaga sameynaya qaab online ah, iyo social media wax lasoo dhigay. labadaasba ha isku aaminin maanta kadib. intaadan muuqaal ka bixin waxaan ka codsanaya inaad kanaal kusoo birto, ama ugu yaraan aad hal qof oo asxaabtaada kamid ah la wadaagto. muuqaalkana like-ta ka hilmaamin, ku raaxayso noloshaada. asalaamu calaykum.